Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa kusoo dhawaataan channelkeenii Kaafi Online. Haddii aanad hore u subscribe garayn, please subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyada dambe ee soo socda. inaad noqoto askari dalka North Korea waa arrin aad iyo aad u fudud isla markaana aad looga jecel yahay lagana soo dhaweynayo dalkaasi maadaama dalkaasi badanaaba dadkiisu ay tababar military qaataan. Haddaba dadka ku nool dalka North Korea badanaa lama ogola inay u socdaalaan wadamada kale ee caalamka. Dad badan ayaa jecel inay ka baxaan dalka si kasta oo uga bixi karaana had iyo jeer isku daya. Haddaba waxyaalaha ugu fudud ee looga bixi karo waxaa ka mid ah inaad ka talowdo xadka u dhexeeya labada Korea, North Korea iyo South Korea, maadaama oo haddii aad u soo talowdo South Korea ay full citizenship ku siinayso amaba aad noqonaysid nin muwaadin ah oo dhashay dalka South Korea haddii aad ka soo talowdo dhinaca North Korea. Haddaba ma hawl yara inaad ka talowdo xadka labada dal u dhexeeya. Labada dal waxa ay wadaagaan xad dhan 250 kiiloomitir oo buuro iyo dhul banaanba leh. Haddaba haddii aad isku daydo inaad dhulka ka talowdo, badanaaba dhulka waxa jooga askar aad iyo aad u tababaran isla markaana keebla yuurur ah oo cid kasta oo isku dayda inay ka talowdo xadka tooganaysa oo halkiisa ku khaarajinaysa. Waxa kaloo intaa dheer waxa ku wareegsan taarkaasoo weliba electric lagu xidhay oo waxa weeyaan qofka hadduu is yiraahdo fuul amaba si hawl yar u fuul uu dabkaas ku dhagayo halka ku dilayo. Sidoo kale waxa ku aasan dhulka dhammaantiiba miinooyinka loogu talagalay dadka inay la qarxaan ee landmine la yiraahdo kaas oo si yar oo hawl yar ku dili kara. Haddaba haddii aad tahay askari waxa laga yaabaa inay mar uun ku suurto gasho in aad ka talowdo xadkaas oo aad u baxsato dhinaca South Korea sidaasna aad caalamka ku soo gasho. Haddii dadka ku nool North haddii dadka ku nool North Korea ay ku baxsan karaan xadka u dhexeeya labada Korea oo dhererkiisu u dhan yahay 250 kiiloomitir oo dhul buuraley ah isla markaana ay ka buuxaan miinooyin isla markaana uu ku wareejisan yahay weliba taarka la danabeeyay oo lagu xidhay electric oo haddii aad taabato aad ku dhimanaysid isla markaana ay joogaan askar keeblo yuurur ah oo haddii ay ku arkaan adigoo baxsanaya ku tooganaya. Waxaa jira dhul kale oo si safety ah ama nabadgelyo ah loogu baxsan karo kana sahlan xadka u dhexeeya labada Korea. Dhulkaas oo ah dhulka kaliya ee cid kale la wadaagto dalka North Korea. Dhulkaasi wuxuu u dhexeeyaa China iyo North Korea waana halka ama wadada ay dad badan oo dalkaasi ku nool ay uga baxsadaan dalka North Korea oo ay sanad walba ku galaan dalka China. Ka baxsashada xadka labada dal u dhexeeya macnaheedu waxa weeyaan inaad sii marto labada webi ee dalkaasi dhex mara mid ka mid ah waa Tuman iyo Yululo oo labada webi la kala yiraahdo. labada webi un baad mid ahaan ku baxsan kartaa. Waqtiga samarka ayaad had iyo jeer webiyada lagu baxsadaa halka xilliga jiilaalkana haddii aad doonaysid inaad baxsato aad sameynaysid wixii uu sameeyay wiilkii 15 jirka ahaa ee la odhan jiray Joseph kaas oo ka soo baxsaday dalka North Korea una tallaabay dalka China waxaanu ku sii dulugeeyay biyaha webiyada oo fadhiistay oo markaasi baraf isu bedelay ayuu ku dulugeeyay taasoo safarkaasoo aad iyo aad u khatar badnaa halisna uu mar walba ugu jiray in uu dhulku la go'o sidaasna uu ku badbaado. Laakiin si nabadgelyo ah ayuu ugu tallaabay dalka China taasoo caalamka ka yaabisay. Haddaba Kim Jong Un ayaa imika wuxuu aad iyo aad waqti badan u geliyaa inuu xidho xadka u dhexeeya China iyo North Korea si aanay dadku uga baxsan isaga oo ku wareejinaya taar danabaysan oo electric raaciyay dhammaan xadka uu la wadaago dalka China. Si aad u daawato barnaamijyada xiisaha leh ee soo socda, fadlan subscribe saar.